nin Maraykanka jooga oo dadkan bodybuilder-ka waxaan ku leeyahay gym-ka ciyaara ayaa waxyaabooyinkii markii gym-ka uu bilaabayay waxyaabooyinkii uu ku bilaabay ayaa qisad cajiib ah yahay. dhakhtar buu tagay uu xanuustay, markuu xanuustay ayuu dhakhtar tagay. dhakhtar markuu tagay ayaa wuxuu arkay ninkan oo haddii uu gym ama jimicsi hadduu ciyaari waayo uu xanuunsanayo. markaasuu ku yiri su'aal buu weydiiyay ninkii dhakhtarka ayaa su'aal weydiiyay, wuxuu ku yiri adduunka yaad ugu jeceshahay? markaasaa gabadh yar buu lahaa gabadhaydan yaan ugu jecelahay buu. markaasuu yiri maad rabtaa buu yiri arooskeeda gabadhaada inaad ka qayb gashid? haa buu. bal ka waran buu yiri haddii gabadha arooskeeda aad ka hadhid buu yiri oo gabadha ay markii hadhow toolo guursato oo oday kale islaantaada intuu guursado oo odaygaa kale gabadhaada la socdo may kula qurux badnaanta bikii may buu waxaan jecelahay gabadhayda markay ay arooskeeda inaan ka qayb galo. haddaba buu ka yidhi haddii aad rabtid gabadhaada arooskeeda inaad ka qayb gashid maanta laga bilaabo waa inaad gym iyo jimicsi iyo sport waa inaad ciyaartid, haddii kale xanuunkaagu khatar ayuu noqon kugu sii xumaan, sidaana waad ku dhiman. ninkii min maalintii ka dambaysa min maalintii ilaa iyo imaka wuxuu noqday dadka Maraykanka bodybuilder-ka ugu wanaagsan, gym-na wuu yeeshay. markaasuu qisada ka sheekeynay. qisadan waxa aan kaaga sheekeynaa waxa weeyaan adduunka wax kasta oo aad rabtid inaad samaysid waa in aad heshid wax ku dhiirigelinaya, wax motivation ama motivation kuu samaynaya waa inuu jiro. haddii wax ay motivation aanan hayn waxaad doontid kuma kici kartid, ama ganacsi noqotaya ama website ama graphic design waxaad doontiba isku day inaad noqotid. haddii aad weydid wax ku dhiirigeliya waxa kuma sare kacsid wax jiidna ma samaysid. maanta dadka qof shaqaynaya haddii aad weydiisid maxaad u shaqo tagtaa subaxii, wuxuu ku odhan family baan biiliyaa, reer baan biiliyaa, dadkaas oo meelan hadhow tolo inay igu xanuustaan baan nacayaa, carruurtayda, aabbahay, hooyaday, islaantayda, waxyaal caynkaas oo miiran. marka dadkaas oo miiran inay waxba aanu qaban kari waayaan nacay. marka subaxdii waxa uu la sare kacayaa ama uu shaqo tagay waxa weeyaan wuu og yahay inay dad ka dambeeyaan, aqaarib iyo ehl iyo family iyo reerna ka dambeeyaan. marka waa saadiraadid wuxuu subaxii hurdada oo macaan u sare kacaya oo u soconay waxaaba dhiirigelinaya ama waxaaba push garaynaya. marka haddayna jirin wax ku kicinaya, haddayna jirin haba yaraatee waxba bilaabi kartid. marka maanta waxaan ku hayaa 5 qodob oo isleeyahay way ku dib yareyn doontaa wax kasta oo rabtid, isbedel kasta oo rabtid inaad samaysid way ku dib yareyn doontaa. 5 haddaba ila tiri. ka u horeysa wax weeyaan have something to push you oo ka dhigan waa inuu aad haysatid sida makaaniga qisada aan kaga sheekeynayay wax is hordhig, waxa darteed ugu sare kaco waxaad tiraahdaa waa inaan saas sameeyo. dhaqaale maxay wanaagsan ma haysid, maya caafimaadkaagu hadduu doono waa sii tabcaan, maya waxyaabo caynkaas oo gym-ka haddaad rabtid caafimaadkaaga waxaaga eeg, dhaqaale wanaagsan iyo caynka haddaad rabtid oo ganacsi aad rabtid dhaqaale wanaagiisa eeg. haddii aad rabtid arday inaad tahay oo nolol fiican aad samaysid tacliintaadan imanka iyo aqoontaada wanaaji. mar kastaba waxaa oo dhan aad ugu sare kacdid waa inaad wax soo dhigtid, waxa aad soo dhigtid daraaddeed ayaad sare kiciyo markaas aad ku sare kici. ta kale labaad waxa weeyaan videoyada badana waan kusoo daraa waa have every day to do list. waxa weeyaan ama telefoon ku qoro ama waraaqad ku qoro. subaxdii kasta ee aad soo kacdiba waa inaad haysataa list waxan aad samaynaysid. haddii aanad listiga haysin subaxdii waad soo kici, subaxdu iyadaa kuwadi adigu waxba yaraatee aad wadid ma jiro, waad iska soconun, kii ku yeedhay waad u tegi, halkii laga hadlo waa tegun, kadibna hadhowta waxaad odhan markaad wax yara qabatay wax lagaa dalbadana busy baan ahay baad odhan, ama maalintiiba saasay ku dhammaataad odhan. marka intay waxaa kugu dhici lahaayeen haddaad subaxdii intaad soo qabatid ood application yar intaad installation aad telefoonkaa ku qorto tiraahdid saaka intaa iyo intaa waxaasoo wax ayaa ii diyaara, kadib markasta ay kaa soo horbaxaan waxa odhanta okay taabaa ii harsan, taa waa inaan dhameeyaa, taa kale waa inaan dhameeyaa. waa in had iyo jeer ay ku yaalaan list aad leedihid
waxaa baad samaynaysaa ta kale saddexaad waxa weeyaan motivationku waxa weeyaan waa laba weeyaan waa internal iyo external internal waa adiga gudahaaga aday kaa timid adiga idloo iska jooga unbaa noloshan unbaad u aragtay dhaqaalahan aad samaynaysa inuu kugu filnayn aqoontan aad leedahay inay kugu filnayn waxyaabooyinkan aad samaynaysa inuu wax ka wanaagsan jiro midna waa external waxay ka dhigan tahay adoo iska socdo baa maalin dhacday waxaa lagu yidhi waryaa maxaa ahaaday waxaad leedahay macaan baad leedahay sokorta iska ilaali maya dhanaan baad leedahay milix iska ilaali maya subag baad leedahay subaga iska ilaali kadib waxaad ku qasban tahay ninkaagii sokorta jeclaa inaad imanka qasab aad iska dayso sokorta ninkaagii dhanaanka jeclaa waxaad ku qasban tahay in dhanaanka aad iska dayso haddaba intuu motivationkan dibadda kaaga imanaya ee kugu qasbaya ilaan markan hadda tolaasleed waxaanaad sameeynaas leedahay wax adiga ka timid maaha waa wax qasab ku noqday waxaaba hadda tolu ku riixay inta wax qasab ama wax external inta ku iman lahayn ee halka ay dibad kaaga iman lahayn adigu internal ka hortaas ka bilow adigu ismotivate adigu sokorta imika iska daa adigu imika milix iska daa adigu imika subaga iska daa adigu imika waxyaabooyinka iska dhigi kartid iska daa inta ayna hadhow tolo lagu oran iska daa taana waa tay saddexaad ta kale afraad waxa weeyaan had iyo jeer waxaad aad la saaxiibtaa ama aad la socotaa ama aad waqtigaaga la qaadataa dad waxaan aad samaynaysid iyaguna jecel ganacsi baad rabtaa inaad samaysid mid ganacsiga caaya inaad garab joogtid maaha waxaad barataa photographer inaad noqotaad rabtaa mid photographerka nacaha la socon waxaad rabtaa inaad dukaan inaad furitid mid dukaanka nacaha la socon had iyo jeer waxaad la socotaa wax dad aad isleedahay waxaan aad gacanta ku haysid ama waxaan aad rajaynaysid eed qabanaysid ayuu jecel yahay waayo waxaan aad ku tala jirtid qof naca haddaad la saaxiibtid isaguna weligii uu kuu caay marna kuu ammaani maayo marka intaad isagu ku niyad jebin lahaa dee iskaba dheerow haddii dadka oo dhan kaa soo wala joogsan iskaga welisa dadka oo dhan adiga gurigaaga iyo masaajidkaaga iyo shaqadaada ha noqoto marka waxaan aad rabtid had iyo jeer ha u dhawaanin dad waxaan naca waxaana idanka ilaahay waxaan ka rajeynaa kale waxaan aad isleedahay samee ha noqdo wax wanaagsan wax dadka oo dhan kula wala nacayaan waxay ka dhigan tahay malaa waxune laakiin wax 2 iyo 3 qof ay kula nacayaan weyn ta kale shanaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan YouTube waa tan aniguna sameeyo shakhsiyan YouTube waxa daawataa inspiration video rag idilo waxa jira maanta international ah oo videoyaal sameeya inspiring you oo ku siinaya motivation iyo dhiirigelin iyo waxa ku siinaya afka doontiga ku raadi af Ingiriis dad garanaysa it's good haddii af Carabi iyo af Soomaali wax inka aad garanaysid raadi kulli waad heli doontaa had iyo jeer YouTube ha noqdo meesha aad ka qaadanaysid energy waliba subaxdii oo inta aan waxyaabeenkaas wax weyn subaxdii oo meedha haddii xabad maxay motivation speech aad qaadatid way fiican tahay taaba hadhow toolo meeran waxa uu ninka leeyahay waa dhici kartaa xabad kelmad iyo laba inay ka dhaadhacdo oo isku daydid inaad samayso intaas aan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad ay islaamtiin salaamu calaykum wa rahmatullah